gabar Sacuudiyana da'deeduna tahay 25 jir waxay ahayd macallimad mid ka mid ah dugsiyada hoose ee dalka. Waxa ay guursatay nin dhalinyaro ah oo isku da' markii ay isguursadeen kadib 2 sano ee ugu horeysay ma ay u qaadin wax uur ah. Kadib dhakhtarada ayaa ugu bishaaraysay inay tahay uur, waa ayna faraxday. kadib markii ay dhashay ninkeeda waxa uu jeclaaday inuu u keeno khaadimad. waxa uuna u keenay khaadimad Aasiyaana si ay u kaalmayso naagtiisa ee inay u daryeesho cunugiisa Maxamed. waxa ay ahayd shaqaale aan muslimad ahayn. kadib markii ay dhashay waxa ay u baxday madrasadii ay dhigi jirtay. 3 bilood kadib markii ay soo laabatay waxaa loo sheegay in cunugeedii dhintay, da'diisuna waxa ay ahayd 4 bilood jir. khaadimadii waxa ay isku dayday in qalbiga u dejiso kana khafiifiso murugada haysato Maxamed. kama ayna shakin Maxamed in dilka cunugeedii cidi ka dambayso. maalmihii ayaa isdaba maray, mar kale ay qaaday uur. waxa ayna dhashay wiil, waxayna u bixisay Maxamed. waxayna tala saaratay Allah inuu u badbaadiyo cunugeeda. kadib markii ay dhalmadeeda laga joogo 1 bil ayaa waxaa loo sheegay in cunugeedii dhintay, iyadoo loo cadeyn sababta uu dhintay. waxaa loo sheegay inay tahay qadar aan la harmari karin. markiiba waxaa asiibay murugo, waxayna iska raadisay sabir. alla agtiisana waxa ay ka xisaabsatay cunugeedii ay weysay. sidoo kale kama ay sakin hal bilbirqsi xataa. khaadimadeeda waxa ay ahayd mid shaqadeeda si fiican u qabsato, mana ay samayn jirin wax khilaafsan akhlaaqda. bilo kadib macallimada waxa ay qaaday uur. khaadimadana waxa ay ka dalbatay inay fasax qaadato maxaa yeelay hooyadeed baa xanuunsaneed. waxa ay ka dalbatay in ay joogto ilaa ay ka keensanayso khaadimad kale si ay guriga shaqadiisa ugu qabato. kadib markii ay imaaday khaadimadii, waxa ay shaqada u kala sheegtay muddo dhan 1 isbuuc. kadib macallimadii iyo khaadimadii hore waxa ay aaday suuqa si ay ugu soo gado hadiyad iyada iyo qaraabadeeda. khaadimadii cusbeed aad ayay u fiirisay macallimadii iyada oo la yaaban hadiyada faraha badan ay u soo gaday khaadimadeeda. kadib iyada oo khaadimadii hore dharkeedii aruursanayso una diyaar garowday safar, waxa ay macallimadii ka walwashay shaqada sidii ay ugu qaban doonto khaadimada cusub. khaadimadii cusbeed ayaa macallimadii weydiisay hore ciyaal ma u lahayd. macallimadii ayaa ku jawaabtay haa. waxa ay tiri miyaad garanaysaa sababta ay u dhinteen? macallimadii oo naxsan ayaa ku jawaabtay maya. waxa ayna ku dartay ii sheeg, maxaad ii weydiinaysaa su'aashaas? waxa ay ugu jawaabtay khaadimadii cusbeed markaan arkay sida wanaagsan ee ula dhaqantay jaariyada iyo hadiyadaha aad u soo iibisay, aniga uma dulqaadan maxaa yeelay anigu waxaan ahay muslimad. waxa ay ii sheegtay khaadimada markaan imaaday halkan in haddii aanan garanayn sida loo xanaaneeyo carruurta inaan ka takhaluso sidii ay ayada yeeshay camal. waa ayna sumaysay carruurtaada. ma aynan dhammayn khaadimada hadalkeeda ilaa macallimadii ay qaylisay, indhaheedana ilmo fara badan ka qulquleen, gacmaheedana madaxa ay ku qaraacday. waxa ayna gashay xaalad xun. waxa ayna bilowday in ay u qaraacdo si xun khaadimadii xumeed oo ciyaalkeedii laysay, laakiin khaadimadii ma aynan qiran hadalka. kadib markii uu imaaday ninkeeda, waxa ay u sheegtay dembiga ay samaysay khaadimada. 2 khaadimo waxaa loo qaaday xarunta booliiska, laakiin booliiska waxa ay u qaadeen macallimada stationka maxaa yeelay dhib ayay geysatay. kadib waxaa laga dalbay in ay keenaan cadeymo la xiriira dembigan maxaa yeelay ma hubaan in ay tahay qofkii ka dambeeyay dilka cunugooda. kadib go'aanku waxa uu noqday inaan la garanayn carruurta meel ay jiraan oo aanan sabab loo heli karin. intaa kadib waxa ay go'aansatay macallimada inay iska dayso madrasadii ay dhigaysay. waxa ayna bilowday in ay tarbiyeyso cunugeeda cusub. waxa ayna ka kaaftoontay wixii hore u dhacay.